loo kala hari maayo halkaasoo nagu soo booqan doontaan idinku soo mashquulay gaari abaay iskuulkeeda howlaha qarankoo socda oon hakanaynin waxaa muhiim iyadana dagaalka lagaga xoreynay dalka khawaarijta in loo midoobo in la wada aado waad ogtihiin madaxweynaheennii wuxuu joogaa magaalada Cadale dalxiisu ma joogo dagaal buu u joogaa tuuto libisan yahay waad aragtaan waxaan ku boorinayaa dhammaan in laga qayb galo waa u wada soconaa cali maxamed geedi waa tegayaa aagaga la qaybshow mid fariisan doonaa loo kala hari maayo halkaasoo nagu soo booqan doontaan idinkuna ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanada ee hortaagan cadowgana in la guubaabiyo la hambaliyeeyo loona duceeyo intii shahiiday ayaan soo jeedinayaa inta dhaawacana iyadana la daryeelo muhiimay noo tahay in askariga dhaawacan la daryeelo si midka dagaalka ku jira uu u dhiirado in haddii uu dhinto agoonta la daryeelo si midka u dhimanaya qaranka oo u dhiirado oo isu yiraahdo haddaad dhimato awalba dalka ayaad u dhiman lahayd waana shahiid hadduu dilay haddii la dilo jannada galaye inaad guubaabisaan in maaragtay saxaafadda qaranka iyo baraha bulshada aad loo abaabulo oo gaar ahaan wasaaradda warfaafinta aad gaarsiiso mudane ra'iisul wasaare in hawshaas aad nala qabataan cadala weydin ku wada casuumayna iyo aagaga dagaalka oo ka shisheeya waana wax Soomaaliya oo dhan ku socda maaha wax u gaara cadala iyo deegaanka uu ka tirsan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.